sheekada ugu la yaabka badan ee Suuriya waa xabsiga caanka ah ee Sednaya Bryson, laakiin loo yaqaan kawaankii dadka. Waxa loo diiwaan geliyay mid ka mid ah xabsiyada ugu xun dunida oo ay ka dhaceen ciqaab adduuntan ugu daran. Marunbaa in loogu tagay hilbadad oo talaajado ku jira. Sidee loo ciqaabi jiray dadka? Sideese loo dhisay xabsigan iyo taariikhdiisa? Weydiimahaasi oo dhan waxaad kaga bogan doontaa sheekadan oo aan ku eegi doono, iyadoo wali uu socdo qodista xabsigan si loo soo badbaadiyo dadka ku hoos jira godadka hoose ee aan la gaari karin. Muuqaalkana sii faafi. Xabsigan waxa lagu magacaabaa Sednaya, waxa uu ku yaalaa duleedka caasimadda Dimashq ee dalka Suuriya. Muuqaalkiisu waa midkan halkan idinkaga muuqda ee u samaysan sambuus saddex gees oo kale. Waxa uu dhexda kaga yaal dhul buuraley ah oo cirifka caasimadda ah. Gudaha xabsiga wax badan lagama oga ilaa markii uu meesha ka baxay faashilkii Bashaar. Waxa uu u dhisan yahay saddex qayb ama dabaqyo ah oo kala hooseeya oo ilaa dhulka hoostiisa jira. Waxa markiisii hore loo qorsheeyay in uu noqdo xabsi military oo loogu talagalay in lagu xiro ciidanka, laakiin mar dambe ayaa loo bedelay goob lagu xiro shacabka ka aragtida duwan, maamulka kaligii taliska ah iyo siyaasiyiinta ka soo horjeesta. Qolalka xabsiyadan waxaa loo dhisay sidii qabrigii oo kale. Waa 2 mitir oo ay ku jirto meesha aad seexan lahayd iyo meeshii aad ku saxaroon lahayd. Taasi waa tan sababtay in dadka ka soo badbaaday ay ugu curyaameen intooda badan. Dadka qaarkii waxay u geeriyoodeen naqas maadaama meeshu ay tahay dhulka hoose, isla markaana aan lahayn daaqad ama mashiin hawada soo gaarsiiya. Waxa la yaab ah ciqaabta xabsigan ka jirta oo dadka lagu xiro ku qasabta inay isdaldalaan iyagu. Sida lagu sheegay warbixinada laga qoray, nooc kasta oo ciqaab ah waa mid halkani ka jirta. Waxa ka mid ah in gaajo qofka lagu ciqaabo oo cunada loo diido, garaacista joogtada ah iyada oo loo adeegsanayo biro iyo walxa adag, taasi oo qofka ku sababtay inuu cagihiisa ku joogsan waayo mustaqbalka. Waxa intaasi dheer in maalin waliba in la toogto, iyada oo ujeedadu tahay in lagu kala yareeyo maxaabiista waliba iyaga oo arkaya. Hal sano gudihiis waa sanadkii 2021 in ka badan 30,000 ayaa u dhintay jirdilka iyo ciqaabaha kale ee xabsigan. Bal qiyaas tan iyo intii uu jiray imisa lagu dilay. Dalka Suuriya, qof bad qaba in la iska waayo mar qura waa caado ka jirtay 10 sano ee la soo dhaafay. Taasina waxay ku dhacday nidaamka qoyska reer Al-Asad oo ay u fududeed inay iska qalaaftaan qof kasta. Haweeneydan waxay hortaagan tahay xabsiga loogu magac daray kawaanka dadka. Waxay sheegtay in 7 ka mid ah caruurteeda iyo kuwa la dhashay ay ku maqan yihiin halkani. Ninkan odayga ah oo isagana lagu magacaabo Xusni waxa uu sheegay in 4 caruur ah oo uu dhalay lagu xiray halkan sanadkii 2012, laakiin dib dambe uma aanan arkin ilmaheygii ayuu yiri Xusni. Dad aad u tiro badan ayaa soo hordhoobtay xabsiga, kuwaasi oo doonaya in nolol ama geeri mid uun loogu sheego ilmahooda ama waalidkood. Balse tani suuragal ma ahayn maalmo ka hor intii xukunka uu joogay faashilkii Bashaar ahaa. Ilaa iyo haatan waxa socda qodista iyo jabinta albaabada xabsiyada ee dhulka hoose, maadaama furayaashii xabsiyada ay la baxsadeen kaligii taliskii iyo kooxdiisa. Waxyaabaha cajaa'ibka leh ee xabsigan iyo xabsiyada kale lagu arkayba waxa ka mid ah in hilbadad lagu arkay sida warbixino hordhaca ay qorayaan. Waxa sidoo kale la arkay hilba xayawaan, gaar ahaan xayawaanka eyga oo malaha la siin jiray maxaabiista. Qaramada Midoobay iyo hay'adaha bani'aadanimadu waxay u aqoonsadeen meel ka baxsan xeyndaabka bani'aadanimada in ay tahay halkani. bal adigu aragtidaada hoos nagula wadaag, muuqaalkana laag saar oo sii share garee.